so wixii hal mar maana wada bilaabin lip glossaan ka bilaabay timaha u gudbay wejiga u gudbay marka dambe jirka ayaa u gudbay so wixii waxay igu qaaday step by step markaan arkay baahida loo qabo wax ugu horeyso qofka steps ka qaaday ma jiro qof u dhashay wax oo maanta intuu bilaabo berito la guul ka gaari karay waa inaad ka barato qof expertiya oo waxaan kaaga sii horeeyay ka bacdi lip glossaan arkaysan aniga ayaan soo saaray Melissa ku qora gacanteeda ana ku sameeyay wax qofka hadhow tool waxa iman doona waqti down iyo up waqti waxaad gashay oo hoos u ka saari doono ama saad ugu tala gashay ma wada kale ay mari doonto waa inaan dib u fikirtaa why aan bilaaway sababta u bilaaway maxay sabab aan u rabaa tilaabada inaan qaado marka wayda aad heshid marka hore u sii socon kartaa kusoo dhawaada podcastiga ama podcastiga shaxda guusha podcastiga waxa maanta marti noogu ah Malyuun Axmed Malyuun Axmed waxa weeyaan waa entrepreneur waa hal abuur waa influencer waa asaasaha Melissa Modesi waa gabadh ardayda oo jaamacadda dhigata waxay samaysay Melissa businesskii traditionalkii waxay u bedeshay business casrigan la jaan qaadaya wax ku cusub bulshadeena aan u baahanay bay samaysay ay ku guda jirtaa oo u fududeysay dhalintii iyo bulshadii wax waqti badan ka qaadan jirtay inuu waqti kooban ay u dhamayso horseedna u tahay anuu hambalyeynaya marka koobaadsan tahay kasoo qaybgalka podcastigeena shaxda guusha oo aad diyaar u tahay inaad bulshada ka caawiso waxyaalada aad aqoonta dheer tahay iyo saad meesha u gaadhay aad diyaar u tahay inaad dhiirigeliso waa ku mahadsantahay kasoo qaybgalkaaga asaasaha Melissa Modesi waxay degantahay Sudan waa arday jaamacadda dhigata iyadoo jaamacadda dhiganaysa bilowday business inay noloshooda ku dabari karayso ayna uga baahan waalidkeyga inay wax ka caawiyaan iyaduse caawinaysaba halkii ay caawimaad ka heli lahaayeen tusaale oo ah dhalinyarta wax baranaysa jaamacadaha ku jirta ama iskoolka ku jirta leh sabab ma gaari karayno ama ma samayn karayno tusaale u noqonaysa waana sababtaan ugu soo casuunay podcastigeena si ay tusaale nigu noqoto niga caawido waxa taladeeda iyo say ku samaysay iyo say u maanays karayso iskoolkeyga iyo waxbarashadeeda iyo ganacsigeyga Melissa kusoo dhawow podcastiga shaxda guusha aad baad ugu mahadsantahay waqtigaas soo qaad aad ugu mahadsanaa walaal waa mahadsan tahay waana dhowahay magacayga waa Malyuun Axmed dalka Sweden halkan ka bartaa jaamacad kana shaqeynaa businessna ka leeyahay entrepreneur maxaa kugu dhaliyay inaad noqoto adigoo wax baranaya aad bilaabi karayso ganacsi fudud waxbarashada inaad sii wadi karayso maxaa sababa waxa sababta u ah waxay tahay inaan ganacsi bilaabo aniga wax baranayo ka hor jaamacad intaan bilaabo shaqaysanayay laakiin markii aan jaamacadda dalbaday waxaan ku fikiray ardayga markuu arday noqdo jaamacadda incomekiisa wuu isbedelayaa so dhaqaalo waxa ku imaanaya qaal adeega ku imaanayso marka daashala shaqaysan jirtay oo markaa jaamacadda bilaawdid shaqadaadii saa u shaqaysan jirtay ma u shaqaysan kartid so marka waxay saameynaysaa incomekaaga marka waxaan ku fikiray sidee ayaan income ku samayn karaa anigoo jaamacaddina dhiganayo familkeygana aan ku caawin karaa halkii aniga aan liga caawi lahay taas ayaa keentay inaan businesska bilaabo jaamacaddeydana dhigto marka waxa weyn waxa kugu soo dhacday inaad business bilowdo inaad galay aad ganacsi samayso wixii koobaad ka fikirtay muxuu ahaa maad sii gelinaysay ma wuxuu ahaa qaybkan la ismarinayo ama B2 wax aad markii horeba jecleed mise waxay ahayd fursad ka banaanayd bulshada oo ay u baahnayd wax ka buuxiya oo tiri okay waxa loo baahan yahay dhibtan inaan xaliyo ka bacdina aad bilowday mise waxay ahayd wax aad just u bilowday oo ku tijaabi mise waad jecleyd wax yaraantaadii kugu jirta qaabkeed u bilowday maxaase kuu fududeeyay inaad ganacsigan doorato ama ganacsi kale u gali karweyd ganacsiga aniga weligay waan jeclahay mar walbana waan jeclaa businesska bilaabo marka maalmaha kamid ah waxa ii suurta gashay in maalmaha kamid ah niyadeyda waxa kusoo dhacday waxaan arkay dadka inay u baahan yihiin alaabaha naturalka ah oo dabiiciga ah oo rag iyo dumarba ay isticmaali karaan ina Soomaalida aan u baahanahay then waxaan qaatay koorsooyin oo iga saaciday sida alaabta loo soo saari karo haddana waxaan rabay in aniga alaabta gacanta aniga aan barto oo aan ogahay ingredients alaabtaas ay ka kooban tahay haddana alaab waxaan rabay inaan soo saaro natural oo vegan ah oo xayawaan iyo waxyaabahaas dhan bala xiriirin markii koorsadii ayaan sameeyay ani kuley waxaan ku bilaabay lip gloss arkaysan aniga ayaan soo saaray Melissa ku qora gacanteeda aan ku sameeyay so lip gloss ku xiiseynay lip gloss markii aan bilaabay ka bacdi bilooyinka bacdi waxaan u gudbay skin care-kii waxaan arkay loo baahan yahay skin care-ku muhiim yahay oo Soomaalideena u baahan tahay
wax loo baahan yahay taasaa keenta koorsooyinaa qaata adii 3 bilood meelahaas kabacdi waxaan bartay sida loo soo saaro productyaasha sida shirkadaha waaweynka oo kale iyo dadka usoo sameeya taasaa keentay inaan bilaabo maasha allah haddana wuu ii socdaa maasha allah waxaad ka dhawaajisay Melissa in aad aragtay in dhibta loo baahan yahay qof markuu entrepreneur yahay markuu hal abuur yahay waxa weeye waa mushkilad talab u xalinaya mushkiladda markuu xaliyo buu ka helaya natiijadiis sidee kugu dhalatay fikirkaaga ah koorsa qaado marka koobaad ka bacdi wixii bilow sababta I like it inaad tahay qof open minded waana wax ugu horeyso qofka steps ka qaaday ma jiro qof u dhashay wax oo maanta intuu bilaabo berito la guul ka gaari karay waa inaad ka barato qof expertiya oo waxan kaaga sii horeeyay ka bacdi adiguna aad sameynayso maxaad oran karaysaa inuu ku sababay inaad koorsiga qaadato sidoo maxaad dalinta kula talin lahayd hadda raba inay ganacsi bilaabaan meesha ugu fudud ku bilaabi karayaan tan anigii u dhalisay markii hore wax badan aan niyadeeda iska weydiiyay haddii aan ganacsi bilaabay waxaan rabay ganacsi aniga dee gacantooda kusoo saaray rabay inaan bilaabo dadkiina u baahan yihiin marka waxaan sameeyey seerjiyaal badan ayaa sameeyey waan raadiyey waxaan arkay adig gabar cadaan oo soo bandhigay sida waxyaabaa loo sameeyo saas darteeda marka anigana searchingka sii sameeyaan sii waday sidee waxaan ku bari karaa sideen kusoo saari karaa sidee maanta alaab kastaan u baahan aan usoo saari karaa haddii ahaleed shaambada timaa lagu dhaqdo wejiga dee ala jirka ahaa wax walba oo maanta ani ahaantayda waxaas dha bal horta adi ahaantaada wax walba oo maanta naftaada u baahata ma soo saari kartaa taas ayaa hore markaan arkayna baahidaas aan xaqibtiri karo oo maanta waxa anigaan u baahan aan soo saari karo marka waxay igu soo dhalatay waayo aan dadkaygina aan ula shargaraynin ayagabay u baahan yihiin alaab natural wixii anigii caawiyey dad anigoo kale jooga oo u baahan so taasaa keentay inaan businesskaas bilaabo oo anigaan wixii aan sameeyo kabacdina aan iibiyo website sameysto very beautiful waxa weyn professional baad sameysay waxay ka dhigan tahay waxaad aragtay dhibti adigii baa aqoontiis baray ka bacdi markii wixii adiga uu ku qanciyay aad u aragtay inuu xal yahay ba waxaad go'aansatay inaad bulshada ku soo biiriso waana wax kastoo looga baahan yahay qofka soo entrepreneur inuu fahmi karayo ama hal abuura haddii aad rabto inaad ganacsi bilaabayso inaad eegto halkii mushkilad ka jirta siyaasad ma xalinaya halkaas cilmiga ka doonaya wax weyn wax badan baa laga baran karaya waxbarashadaadiina u wada tan kana isku garab waday maxaad isticmaashay ka isticmaashay badahay jaamacadda dhiganaysay family baa ku xil sidoo u qorsheynaysay sidoo samaysay balankaaga soo dejisay qaabkeed u bilowday ma waxaad bilowday markiiba waxaad bilowday inaad ganacsiga gasho mise waa tijaabisay kolba step aad u gashay oo inaad eegto bulshada intay u baahan yihiin reactionkay ka soo celinayaan qaabkeed u bilowday kuwa pirima aniga waxaan ka bilaabay saan ku sheegay lab glasta ka bilaabay lab glasta markaan muddo ay wada adiga bilooyin waxaan u gudbay saliida tinta saliida tinta markii dadkii aan la wadaagay ee dadka aad ugu heleen waxaa ka u gudbay wejiga so wixii hal mar maana wada bilaabin lab glossaan ka bilaabay timaha u gudbay wejiga u gudbay marka dambe jirka ayaa u gudbay so wixii waxay igu qaaday step by step markaan arkay baahida loo qabo haddana wax walba intaana dadkaan la wadaagina aniga ayaan soo baroobeynaya familkeyga asxaabteyda markii arkay wixiina wax wanaagsan yihiin jita fiican dalinays dadkina anigana iyo caawiso wixii adiga markay ku caawiyaan ayaa dadkaan la wadaagi kartaa ay dhigi kartaa markaas sheegi kartaa nijitada iyo waayo alaabta u isticmaalaysaa laakiin wixii haddii aadan adiga soo isticmaalin oo kaliya waa la sameeyaa u samaysid ma soconayso so marka businesskana sidoo nabigeena calayi salatu wasalaam u duceeyey taas darteed businesska marka alxamdulilah hadda labahan saa u sheegaa kale facewashkaas oo kale sawira kugu gloss ayaa ka bilaabay so marka waxyaaba badan marka maadaama haddana aan jaamacadda bilaabo aniga businesskii wado jaamacadda ii soo dhacday marka jaamacadda bilaabay waxaan sameeyey maadaama macaamiisheedii alaabta mar walba waxaa u diri jiray isbuuc 3 jeer oo kale ayaan diri jiray waa igu adkaatay taas maadaama waxbarashada markaan gashay way adagtahay waxbarashadii sanadkii koowaad waa taqaana wixii dhan waxaa kasoo bilaabaysaa hoosaa kasoo bilaabaysaa wixii dhan way kugu adig wixii aad taqaana ma taqaanid marka waxaan sameeyey isbuuc hal jeer inaan diro alaabta macaamiishadan waa la wadaagay waa informer gareeyey waxaa ku dhahay jaamacadda arday ayaana noqday haddana wixii keligay waa wax walba anigaa sameynayo wax saas u manage gareeyey inaa ma shanta maalin wax barto sabdidii axadina businesska aan waqti siiyo shaqaystan party time
wow, very beautiful. waxa weeyaan waan inspiring qodod badan bay dhiiri gelinaysaa qaabkaad uga heshay aad baan u jeclaaday oo waxa weeyaan adigoo waxbarashadaadiina focus ka saaraya meeshaad u socotay hadafkaagii tanna raba inaad side hustle ka dhigto in aad haddana ka fikirayso macaamiishaadii aad la socodsiinayso informationkii iyo say hawshaadu tahay sideed waqtigaaga u manage garaysaa hawsha maanta waxaan noolahay waqti oo qofku adag yahay inuu waqtigiisa manage garan karayo ama uu samaynayo distraction ku yar yahay dhalintu ay badan asxaabtooda waqti ku lumiso oo ayna ka fikirin mustaqbalkooda saas oo kale u qaabeeyaan adoo wax baranaya business samaynaya haddana fani haysanayo kale seed u qaabaysaa waqtigaaga seesa u manage garaysaa oo tirada okay waqtigan waqti aan la qaadanayo asxaab badan ma leedahay waqtiga sida u manage gareeyo oo waxaan sameeyaa maanta okay waxaan ka fikiraa sideen raba maanta waxaan maxaa sameynayaa so markii aan ogaado maanta waxaan baleenkayga aan degsado maanta jaamacadoo kale haddii aan asna snitage ilaa jimcayna jaamacadeeda aasto waxaan samaysta website ee dadkan aniga iga maarmi karaan alaabtay u baahan yihiin ay heli karaan so marka waxaa samey jiray jaamacadda intaa joogo kale guriga markaa imaado kale wixii information ah ee social media soo dhigi jiray alaabta u sharxi jiray saacad ayaan sii jiray ina update wax sameyn aan sameeyo website-kii update aan ku sameeyo waxina aan barto sabtida axaddan waxaan sameeyaa gelinka hore waan shaqaysanayay marka shaqada kasoo baxayna gelinka dambena aan storekeyga aan tago sabtidii oo kale waxaan sameeyaa waxaan eegaa waxyaabo iga dadka waxay iga soo dalbadeen website-kii aan galaa dadka waxay iga soo dalbadeen aan eegaa waxaan eegaa alaabta inta ii taalo keliya kormeer kaliya ayaan u tagaa sabtidii axaddana waxaan sameeyaa marka shaqada kasoo baxay gelinka hore toos hadan waxaan u aadaa meeshayda markaan tago dadkii waxay alaabta iga soo dalbadeen ayaan u xirxiraa marka u xirxirana waan u diraa boostada ayaan geeyaa isniintan sida loo qaado waqtigaas ayaa ku manage gareeya habeenkiina haddii cashir amba imtixaan aan leeyahay cashirkeygaan akhristaan cashir diraan cashirkaan diraa saasaa waqtiga sameynaa gelinka hore shaqeysta gelinka dambene ina alaabtan diro habeenkiina adiga waxaan tusaale badan oo loo qaadan karayaa waxaad samaysay waan dul mari doonaa hadda waxaad taagan tahay waqtigaaga waad manage garaysay businesskaaga waad samaysay hadda halkeed u socotaa wuxuu yahay Melisa halkay taagan tahay meel ka weyn ay tagto moolkii kaas ayuu yahay moolkii kalena wuxuu yahay maadaama hadda aniga badana alaabta Yurub dhexdeeda ayaan u diraa iyo Mareykanka iyo waxaa rabaa inaan gaarsiiyo dalkii hooyo ilaahay karaal noqdo dadka dalka hooyo joogan ay heli karaan alaabtayda taas ayaa rabaa insha Allah inaan sameeyo guda jira intuu haddii aan kasii weynaysiiyo waxyaaba badan waxaa jiro oo loo baahan yahay weli oo nan sameynin rabo inaan sameeyo insha Allah kusoo biiriyo ganacsigeyga garanaysaa exactly saa samaynaysa haddaba marka aad qorshaha dejisanayso kii ganacsiga ka imanay kii waxbarashada ka imanay sideed u dejisataa qorshahaaga ma waxaad leedahay qof waxa tahay tusaale ahaan oo kale waxa loo dhigtaa 3 nooc qorshaha loo dhigtaa jiro qorsho hadda inaad qabataa qorsho sanadlaa ama bilaa ama qorsho sanado soo socdo kala sidee qorshahaaga u dejisataa markaad business ka samaynayso ama waxbarashadaada mise waxaad u samaysataa daily update maalin walba waxaad qabanaysaa diyaarsataa mise waad sii qorataa oo waad garanaysaa sanadka soo socda waxaad qabanayso iyo hawshaad soo ekaanayso ama bilaha soo socda sid casual u samaysaa sid u balan garaysaa qorshahaaga dheer iyo qorshahaaga gaaban waxbarashada kolley waa wax maalin walba markay businesska ay tahay waxaan sameeyaa dadkan badanaa dadka way qoraa dadkan wax qoran maahi dadka waxaan ahay maskaxda ka fikiro maskaxda ku qorto waxaan rabaa inaan sameeyo 3 sano hadda dhiman sanad hadda dhiman beriyo kale waxaan rabaa inaan sameeyo dadka waxaan ahay ayaga kaligood fikiraan isla hadlo ayaan ahay so markaa rabaa inaan alaab cusub kusoo kordhiyo waxaa laga yaabaa hadda kasoo qaadbo alaabo 5 xab camal oo kale oo product kala duwan inaan kusoo kordhiyo haddana 5tii aanan awood inaan kusoo wada kordhiyo hal mar marka waxaan sameeyaa sida loo kala baahi badan yahay ayaa usoo kala hormariya so marka waxaa laga yaabaa 3 bilo soo socdo kale waxaa focus ka saaraan sidaan kusoo saar lahaa productigan oo kale kabacdina waan soo saaraya so saas sanadka maybe waxaa laga yaabaa productigan aan soo saaro marka waan kala waqti ay sidaa rabo inaan soo kala hormariyaa wayaan qisadaadu dad badan bay dhiirigelinaysaa in saa qaabkaad u bilowday ganacsiga halkaad marinayso dadaalkaad wado halkaad u socoto dhalin badan oo waxaa jirta wadankii iyo gudaha wadanka halkanba joogta qaarkood arday yihiin qaarkood ay shaqeeyaan rabaan inay helaan freedom xorriyad inay helaan iyagu wax meel ay boos ka yihiin ay meel la gaadhaan maxaad kula talin lahayd qofka wadankii jooga ama halkan jooga raba inuu ganacsi bilaabo laakiinse garanayn qaabkuu bilaabi lahaa
waxaan kula talin lahaa wax walba horta macquul waaye laakiin waxaa ka horeeya rabitaanka inaa wixii xiiseynaysid doonaysid hami wixii markaad hami u haysid waad ka miri dhali kartaa laakiin markii hamiga oo meesha oolin oo hami uusan jirin ugu adkaanaysan heerkii arabta aad gaartid amba riyada aad lahayd aad gaartid oo ka rumaysid so marka waxaan dhihi lahaa wixii hami oo inaa u lahaata waa inay kaa go-an tahay in aad qof go-aan tahay oo doonaysid waxyaabaha aragta iyo riyadaadu waxay tahay inaa ogaatid taas ayaan dhalayna ku talinahay wax walbana waa impossible siduu wax baranaysidna business waa bilaabi kartaa mar walbana waa inaad ogaataa waxa adiga aad jeclahay maxaase kaa go-an adiga waa go-aankaaga maxaa rabtaa inaad dadka usoo bandhigto maxayse bulshada u baahan tahay hadafkaaga goolkaaga sumciya taas waa muhiim inuu isweydiiyaa intuusan bilaabin su-aalahaas marka aad soo hesho way kuu fududaanaysaa inaad labadii labaad qaadid wow very powerful waxa weeyaan kulli waa laga arkaya ganacsigaaga oo sababta kale hadii baad dul martay in aad problem iyo mushkilad jirtay aad aragtay ka bacdi aad isku dayday inaad mushkiladii xaliso tiana ku fududaysay bulshadiina wax kusoo kordhinayso adigina wax kusoo kordhinayso talabaad ah qofka inuu heli karayo wax u jecel yahay wax aanad dareemi karin caajis markaad samaynayso aad boring dareemi karin aad samayn karayso wixii adigoo free u dooranaya aad bay muhiim u tahay iyo inaad gool yeelato inaad leedahay meel aad gaarayso inaad yeelato meel aad u socoto haddaanad gool lahayn siisa u gaari karaysaa macnaha waa inaad ku dejisan yahay maaha saad ka dhawaajisay kolley adigoo wax baranaya adigoo shaqaynaya waad bilaabi karaysaa ganacsi horey baad ka gaari karaysaa laakiin waxa weyn waa inaad rabitaankii aad yeelato muhiimayna wax weyn aad ku bilowdaa mar walba waxaa lagu bilaabaa waxyaaba ugu yar step by step waaye wax walba so marka soomaalida waxay ku mamacdaa geedkaada ordu korto orda ugu soo degaysaa wax walba step by step waaye weligaas dhihin ka fikir tilaabada qaadayso step by step markaa u fikirtid okay ka markaa samaysid waxa kuu soo baxaysa hal mar wax bilaawdid way ku sahlanaysaa tilaabada dhinka inaa qaado way ku sahlanaysaa halkaas waxaa kaaga soo baxayo tilaabo qaladaadkii aad sameysay wixii ku hagaagay iyo tilaabada koowaad mar walba marka qofka businesska markaa ku cusub tahayna waa riska businesska waa ina riskigaasna aad number 1 waa inaad saari karto oo niidaada aad sii gashataa inuu businesskood adag yahay businesskaaga laga yaaba markaad soo bandhigto inaa weysaa laga yaaba supportiga aad isdhehaysa wad helaysa hadda waxaa laga yaabaa inaad dadkaa kugu dhow oo isdhehaysa supportaad ka helaysaa inaana ka helinaa laga yaabaa so marka haniyajibin kasii wad meeshaada isdhiirigeli mar walba oo isdhahdid mar walba isdhahd waa nii jabaysaa waxaa ku fikirtaa sababtaad u bilowday waa maxay waay aad u bilowday taa kusoo celi maxaa tiri very power I love it macnaa inaad qofka heli karayo why sababta why sababaad why u doorato why waa inaad heshaa so marka businesska markaa bilaawaysid waa risk horta marka ugu horeyso waana ku fikirtaa inaad khasaari kartid iyo inaad faa'iidi kartid so number 1 waa inuu ku ahaada risk businesska dhan lagu sheegaa waa riski aad qaadanaysid so riskigaas hadii aad adiga ogtahayna waxa ay riski yihiin laakiin adiga aad leedahay naftaada waan qaadan ood aqbashid wixii ku hagaagayaan so tilaabada koowaad aad qaad waxay ku sahlaysaa tilaabadaada labaad waa tilaabada koowaad waxaad ka baranaysaa qaladaadka samaysay wixii ku saxmay bedeli kartaa mar walba qalad samaysana maahan niidaada isniijibisa maahan waa inaad dhahda okay qaladkan wuu dhacay maxaan ka baran karaa sidee ugu taxadiri karaa inuu qalad tilaabadeeda labaad aan qaadayo business markaa bilaawaysidne wixii markaa bilaawdo waxaa laga yaaba dadka inaad soo share garaysid social media aad soo dhigtid waxaa laga yaabaa isdhehaysid dadka kugu dhow isdheheed inaad ka helaysaa support weyn aad ka waxaa laga yaaba aadan ka helin support weyn oo wax support ba aan ka helinba marka haniya jibin has dhihin businesska waa inaad dib u fikirtaa waay aan u bilaaway sababta u bilaawo maxay sabab aan u rabaa tilaabada inaan qaado marka waayda aad heshid marka hore usii socon kartaa haween waaydu waxay ku sababaynaysaa wax qofka hadhow tool waxa iman doona waqti down iyo up waqti waxaad gashay oo hoos u ka saari doono
ama saad ugu tala gashay ma waddo kale ay mari doonto ama nolola maxaa dibta nolosha adduunyada iyo duruufahoodu ay kugu sababi doonaan inaad sii wadi karayn markaas waxa kaliya hadii kugu xajinaysa inaad sii wado waa wide way sababtii aad u bilowday haddaad garanayso marna ma dhiibaysid marna ma joojinaysid waxyaaladan kugu arkay waxa dhacday eventkii markaan joogtay kulay dadka kasoo qayb galay way garanayaan qaabkaad u hadashay dhalin badan baad dhiirigelisay ood u sababtay inay ganacsigooga hadda bilaabaan iyo dhiirigelinta iyo qaabkaad u samaynaysay hablo badan oo hadda samaynaya oo tusaale ku arkay waana ku hambalyaynaya qaabkaad la hadashay dhiirigelin qaabkaad u dhiirigelisay waxa lagaa dareemaya soomaali jacaylnimo waxa soo qaadatay macangegnimo ku adkaan inuu qofku waxa uu bilaabo ku adkaado dabeecadaha waxa ka mid ah waxaad bilowdo ilaa inaad dhamaynayso inay kaa go'naato sideed u aragtaa taas sideed u tahay tusaale ahaan oo kale markaad go'aan qaadato ka hor miyaad ka fikirtaa mise mar haddaad qaadatay waad qaadatay kabacdi markaasaad macangegnimada iyo ku adayga aad ka mira dhalisaa go'aanka kowina intaana qaadana aniga waan ka fikiraa go'aanka aan qaadanayo waayo aan u qaadanayo waan isweydiiyaa sababa aan go'aankaan u qaadanayo markaa go'aan qaatana waan ku adkaadaa oo ciidama dhegeysto markaas waxaa laga yaabo laba badan oo la kulma waxaa jirtay markaa businesska bilaabay dad badan oo islahay isku haleynayo islahay waxaad ka helaysaa businesska kow wuxuu ku barayaa cadowgaagu inuu yahay dadka kugu dhow businesska markaa bilaab markaas ogaanaysa dadka kugu dhow inay yihiin cadowgaaga shisheeyahan inay yihiin dadka ku support gareynayo so marka businesska waxyaaba badan oo bara aniga oo indhaho ii kala furay waxyaaba badan oo aniga markaas iga qarsoon dhibaato badan caqabado badan waa la soo kulmay laakiin mar walba caqabad aan la kulmo go'aankeyga waayo aan gudhow hadhow toloma noqon doonaan si asxaabnimada ka filaysa way ka dawaanaan doonaan kuma taageerayaan inaad ka hesho dad kale oo ku taageerayaad hesho laakiin dadkaad lahayd kalsoonida inaad ka hesho ay ku garab istaagaan oo businesska ku gacan qabtaan waxay noqon doonaan dadka koobaad ee diidmada ku siinaya is very powerful waana waxa dhaca boqolkiiba 90 businesska markuu qofku galo ama familiga cid kamid ah ama asxaabtaada inay noqdo ku yaadin waxaan ma samayn karaysid waxaan ma dhacaysid negative badan ku yeelan taana waa sababta waydaadu ay ku anfacayso iyo sababtaadu bilowday iyo adigu kale haatan visionka arkayso go'aankaaga inaad ku dhigto wadis maxay kala sii wad marka ku sii darso talabaad imka hadda sii bilow talabaadna waa inuu qofka ilaahay haddii aad ku xirnaatid oo ilaahay xiriir leeyahay ilaahay naga wanaagsan wax walba ku wanaagsanaan albaabo badan ayaa ku fur taa ina ilowda maahan markii xatii dhibaato ay ku soo wajahdo waa inaa ilaahay aamintaa haddii maalintaada dee wanaagsanaad ilaahay u mahadceli haddaa maalintaada maaha keliya marka waxa aragtad heshid inaa ilaahay u mahadcelisa maaha bad days good days waa inaa ilaahay u mahadcelisa taasaa anigii saacida mar walbaba la shakartum la asiidanakum baa ka ilaahay dhahaya haddii aad ii mahadcelisaan waan ii siyaadinaya waa very powerful waxa weeyaan gratitude-ka iyo mahadcelinta iyo inaad ilaahay uga mahadceliso waxa xataa aanad haysan aad rabto xataa waxa aanad haysan aad ilaahay ugu mahadiso in aad waxaan heli doonto waa sii dareemaysaa adiga naftaadii habbi badan baad dareemaysaa is very powerful ma jira hadal odhan lahayd oo ku tarsan lahayd aad balinta odhan lahayd qofka bilaabaya ama ku kacaya waxaad ka dhawaajisay meelo badan qaabkii businesska qofku uu bilaabi lahaa sababtii uu keeni lahaa wixii uu mari lahaa systemkii aad martay qisadaadii aad uga sheekaysay dhammaan waxaasoo dhan dhalintay ku dhiirigelinaysaa sideed u aragtaa inuu qofku business bilaabo maxay ku faa'iido badan in aad noqoto qof ganacsi samaynaya hal abuur leh dhalinta waxaa ku dhiirigeli lahay nidaada ka dhabay geedgaan u kortay geedaada mar walba ka dhabay marnaba ha isdhibin taasaan dhihi lahaa dhalinyarta anigu waxyaaba badan hadda aan businesskan ka arkay badan ayuu ii sahlay anigoo maanta familkayga caawimaadkayga ka bahda ina garab keliya ka bahda gabadhnimo waalidka kugu tashanaya gabadhnimo maanta garab keliya ka bahnaa inaa u taagan hal keliya ka bahnaa waxna anigoo baranayo oo maanta wax oo iga hor istaagis maanta inuu jirin oo familkayga inaa caawin taas
businesskayga saaciday alxamdulilah. inaad xijaabkaaga maanta waxaan joognaa meel qurba ay adag tahay qofku inuu xijaabkiisa u shaqaynayo dib u keenayso inaad qofku shaqayso adoo gabar soomaaliya dhaqankeennii aad garanayso lagu amrayo waxaad samaynayso okay inaad qofku shaqayso ceeb maaha waana loo baahan yahay laakiin meesha aan joogno waa qurbo weyn badanaa dhib badan bay hableenu kala kulmaa markay xijaabka gashan yihiin ama dadka xataa ku eegay ishay kugu eegayaan oo kale ayna ku cajibinayn il qurux badan ay ahayd waxaasoo dhan way kaa sahlaysaa soo sideed u aragtaa waxaad noqonaysaa qof xorriyada ku sababaysa inaad familiga caawinayso dadkaaga garab joogto aad gabarnimadaada ilaashanayso aad tahay qof adoo ismaamulaya qofna amar ka qaadanayn wixii uu jecel yahay samaynaya at the same time dadkayna wax kusoo kordhinaya oo bulshadii dhibtii ka xalinaya it is very powerful Melissa qisadaadu waxa weeye dad badan bay dhiirigelinaysaa dad badan bay u taraysaa inay indhaha u furto dhalinyar badan baad horseed u tahay halkaa kasii wad guushaadana waxa weeyaan shaqo badan bay dhalintu kaa faa'iidaysteen saad businesska u bilowday oo ah kow hel dhib jirta dhibtaa xalli markaad ogaato xalkaygaad heshay ee bulshadiina wax kusoo kordhinaysa arkayso kusoo biiri bulshada adoo wax baranaya wax waad samayn karaysaa sidoo kale go-aanka markaad qaadanayso ka fikir intaad go-aan qaadan kabacdi markaa go-aan qaado markaad go-aanka qaatana ku adkow ku xisaabtan inay dhici doonaan familigaaga iyo dadka asxaabtaada kugu dhow waxaad wadda inayna taageeri doonin qaybtaana ay ka mid tahay qaybta businesska iyo ganacsiga inay kaasoo horjeedi doonaan laakiin ay muhiimadu tahay adigu halkaad u socoto iyo qaybtaad gaarayso podcasting intaa joogin wax badan buu qofku ka faa'iidaya wax badan baad soo bandhigtay halkay kaa heli karayaan dhalinta xiiseynaysa inay ganacsi bilaabaan ama rabaan siday u samayn lahaayeen ay kala kordhin lahayn ama adiga wax kaa kororsadaan halkay kaaga soo xidhiiri karayaan instagramka iyo snapchatka igala soo xiriiri karaan dhalinta haddaad su-aal qabtaan haddii arto alaabina soo dalbataan xataa ama waxaad rabaa inay iibsadaan oo kale baragtigayga oo kale websiteki toos ugu iibsan karaan amba waxay igala soo xiriiri karaan instagramkayga ama snapchatka igala soo xiriiri doonaan xagga hoose videoga ay ka heli doontaan insha allah camar baa idinkugu soo qori doono meelna dhan igala soo xiriiri badan leh adala qaybtanta iyo cilmiga iyo dhiirigelinta dhalinta aad dhiirigelisay waan kaaga mahadnaqayaa kulankan iyo kulanka dambe insha allah baynu ku kulmi doonaa aad baad ugu mahadsantahay thank you very much aad waa mahadsantahay walaal caamir